جبي وما قلنت وما قلنت نيت هذا قسم وما قلنت وما قلنت ساذني حدا وما قلنت وما قلنت قلبي قاقت جبي وما قلنت وما قلنت نيت هذا قسم وما قلنت وما قلنت ساذني حدا وما قلنت وما قلنت ذي قومي يعيل وما قلنت وما قلنت ذي قيرة النوان وما قلنت ذي وما قلنت ذي قف كوتوين وما قلنت ذي قبل صدق واي محسمي سادق أرد ماشان اسكا تكسر حد إنتو إيماني وهنكو بريا يا اسكا بح مسداس gabadhaas ka hayso meel cidla ah waa inay madanayo inay dib igu soo laabato dhiig ayaad iga daadisay xanuunna waa i dareensiisay isla sidaasoo kale waa inaan dhiiggaaga u daadiyaa kadibna aan xanuun ku dareensiiyaa dhiigdaati dhiig ayaa lagu beddelaa waa inaan daadiyaa dhiiggaaga وهنكو بريا يا اسكبح وهنكو بريا يا أدر ماشان اسكا تكسر حباني وهنكو بريا يا أدر ماشان اسكا تك سرحة الباب كتب هدي أو كسوك القوي وكاسينايا waadi dhaawacday ma waxaad ku fikiraysaa dhaawacaad ii geysatay inaan ilaawo dhaawaca ii geysatay mid ka daran ayaan kuu geysanayn weliba aadan daawo u heleenin maxaa dhacay sidee waxu jiraan maxaad igu samaysay waxaad iga dhaawacday meel aan loo baahnayn waa maxay dembiga maxaa dhacayeen xabad meerta inaad igu rido mise sida caadada ahayd aroos ayaa jiro xabadahaad u ridaysaa aniga si wanaagsan ayaan ku aqaanaa ogow waxaad tahay in lagaa yahay عباسو
meelaan loo baahnin ay taas macquul miya baaskii wanaagsanaayo sidaan may ku yaal baaskaygiyo abbaas hooyo xageed saacan ka timid hooyo aniga waa xanuunsaday ma ogtahay maxaa kugu dhacay may xoogaa yar gudaha ayaan dhaawac ka dareemayaa aniga dhiiggaana muxuu yahay hooyo eernadii ayaa xoogaa yar i furantay adigana waxay leedahay murugtan iyo waxaan waa macay hooy aniga takhtarka waa inaan aado soo daaweeya aniga teeda iyo haysata adigana wax kale ayaad ii sheegaysaa hooyo waan bax war iqabtaawe kaxee waxa dhacay adiga naasiyo waxbaad i weydiinaysaa ana dhiiggaygaa daadanaya isbitaalaan u baanay gaarigii saara si fiican ii saara gaariga haa tartiib ii saara dhaqso kaxee gaariga adiga ma ogta meesha aad midada iga gelisay maxaa kugu dhacaynaa may waxba iguma dhicin fiicanahay maxaad qarinaysaana ii sheeg zimrad waxaan ku dhahay maxaad xaggaaga dambe ku qarinaysaa mindi waayno xoogaa dhulka ku dhacda dhulka ka qaaday xaalka wejigaaga waa madgadisane maxaa jira ii sheeg xoogaa xabad ayaan maqlay waan cabsaday hadda musqusha ayaan aadaya waan ku soo laabanaya xaaladeeda caadi maha aniga dhan waan dabaqsanahay bawsiye haddii kale waan dhimanaya dhiigbax ayaanu dhimanaya wixii loo baahna aniga waa inaan sameeya haddii kale waan dhimanaya hadda sidaana fursad ku haystaa haa halo xabiibti jaan aniga waan dhimanayaa haddii aad ii imaan weyso markii aad iiga tagtay ilaa iyo hadda dhibaatadun ayaan madaxa la galay xanuunkana wuu igu soo saa'id haddaad iga soo gaari weyso waxa macquula inaan dhinto maxaa yeelay eernada ayaa i furantay haddana dhallinyarta ayaa isbitaalka ii sii wada aniga inta aanan dhiman ka hor waxaan rabaa adiga inaan ku arko yaa waan ku baryaya sidaas ha iiga tegin inaan ku arkaan rabaa ee ii kaale waan ku baahanahay yaqi cabaas eernada ka furma tacbaan waa isaga معقول ما نكسر أخوه باشلو حسب مجران ساحب فهني أخ نكس أورو مسكح إنه كقدم فهني codka aan maqlaa iyaa waayana xaggee joogta iyaase dhinacaa ka hadlay anigii mudane egtir ayaan cunto wada cunaynaa ajdar yaa waay qofka ajnabiga saacaddan kula jooga adiga waa maxay haddaan imaanayaa meeshaa joogta cabaas adiga haysto aan had samaynaan tacbaan ayaan ahay waxaan u socdaa isbitaal beenaala kada iblow aatee mar dambe haysaa wacan waryaa zimraday abuukaataan adigaa qoortii geliya dhibaatna ii keena laakiin waxaa balanigu ah qofaa jeceshahay inaan dilo nafjahaan war aniga xanuun ayaan dareemayaa weliba xanuun saa'ida ayaan dareemayaa bas waa tacbaanaan ahay aniga مارو مركل ما أقول أنا مدن عباس عادي نبغى تنا مسك مرجية
aadaad u mahadsan tahay katiinadan kuma nuuraysid adiga sidaas darteed inaad xirto maba loo baahna orad halkaas seexo booskaaga waa goobtaas katiinadan aniga ayaa iska leh wakhtiga ku habboonaa marka la gaaro ayaad ii xidhi doontaa awowahayga markii aan yaraay qisooyin ayuu iiga sheekayn jiray wuxuu iiga sheekayay qisada shimbirtaasne awowahay aad iyo aad ayuu u jeclaa wax walba oo iyada ku saabsanna aqoon ayuu u lahaa shimbirtana waxa ay jecleed mar weliba qoraxda inay ku dul wareegato awowahay ayaa ii sheegay shimbirta mar weliba waxa ay jecleed qoraxda awowahay hadalkiisa haddii aan aamini waayo nolosheeda gebi ahaan way burburaysaa iyadoo dhan mugdi ayay isku beddelaysaa كيف محدد شي زمرد ما حدد شي سرحت ديجيا تمام
foolxun ayay ahayd haddana waad ka gudubtay way dhammaatay asar xataa iga tegin meelnaha aadin soo bax ninkeen gacmaha iyo wejigan kaa soo dhaqo ugu yaraan ninkeen soo soco kaale كان صوصعه هل كان صحيح هاي صحيح أنا هل كان جوج وحبا كولول صحيح يا أخي كان مصيبة وايد باني ورياض كعان كده إيه كسرتين أنا قاعد هذا كده لبدنا هالقط ما هو نصيحة أنا كده كعان كده بنا كيجات إيه صباح بلايا كش إيه صباح عن كده ما هو جيبنا أنا قاعد ساعة كده ساعة بركاية وكنا استيار بخصه عرب بارك على بدنا قلنا نيجو أنا قال لبدنا هالقط ما هو نصيحة أنا كده واللي بحصرير ما بيصير ما كرنا أنا قاعد لا ما تقول لسه وما راح شيء فيري قبل سمرت قل كذا ساحنيسا ما فهمت وحياة كلا شيء سنة أنا وحبي ما قلي كلي أنا قاتنا نص خمية والله بالله ترى بقول عجز ما كل شيء مثل جوي كنا أنا قلت أنا كادم سنة كره وان كنت بسده ها قش جا كذا وحلا بني قاله وان كنا عاي حبيبي قال بورا نبغى نسمع ورور كاسي كده فاكنا قبل القط كده دقيقة ساكمري ناني قبل القط كده بيسن في ماشي جار لوجي ماشي ساحنا سا الله وكو عاجز اني كاني صح الله دايما هدي ولا معانا ترتيب بالفيريني كان فيري انا هذا دوينو كجوجا الله صح صح جاكدا قبضتي ودبا صح صح كده ساعة كده وجهيه أنا بكون عوان كده أنا كده ساعة كده القادنا عادي أنا كده عجز أنت كبر أن القاد ما بكون هيك معقول ما نقول ساعة كده هذا كده بكل شيء نتاوت مركز تاوت حتى أنا كده سكلا يا نقول يا كده ده كده ما كده ونادي هذه كلا ساعة كده برضه هذا نبيس ويا كده أنت كبر ما بكون تاجنا كده صحيح تكسر هني يطلع من هذا هو كل شيء يا ساعة دقيقة يا حكا sida u nadiifinay waa daalan ku dhah meel ku nasto mala meel sax mala yaqaaniga qolka maxaa saxda waa kan gaar 18 sano jira maalka istaqalla ma tirtira kala
fiiri meeshaan wasaqda ma ka dhammaanaysaa ku dhah waa kana tirtiroo la idilayaa ku dhah walaasheenna waa kaasa guriga qasriga dambiirkaana ku nooshaa anigina waa kana abaartaana dhexda jooga يا وامحي وحنا ولا شيء وحمية نقرن يا سينا aniga aad iyo aad ayaan ku jeclahay nafteyda ayaa tahay indhahayga nuurkoodana waa adiga iyo ala naya halkan maxaad ka qabanaysaana aniga soo guriga tirtir ma ku dhiin maxaad hagaajiwaysa ii sheeg meeshan maxaad iigu taagan tahay naya meesha maxaad ka qabanaysaana aniga oo soo kuma dirsan maxaad iigu qaban waysa warqadaa gacanta ku haysan maxay maxaa waay kaan balaafiday maxay waxaan بقشدان وبقشد هذه المهم هو أبو يا أخي حاول يمكن يحكي شكينه إنه قدها ورقة كجرتك سفير قدها محقق قبلين Sen benim her şeyimsin, nefesimsin, gözlerimsin, kokulu sıcağım. الإلهي محاولة سرحات subax wanaagsan gabadhan sodog oo ahaye waxaan u malaynayaa xal si wanaagsan ayaad u jiifatay soo bas iga jooji intan ayaa igu filan aniga meeshan iskaga tag haddii wax walba aad samayso sarxad ayaan u sheegaya oo kaadi xalay in aad mindi ii gelisana ma u sheegaysaa oo adiga waxaad tahay gabar run ahaan aad iyo aad u wanaagsan aniga takhtarku wuxuu yidhi mataqaanaa mindidaas 2 sinti haddii ay hoos u degi lahayd waad dhiman lahayd carabkayga ma soo marinayo hadalkaas waxba ha ka cabsanin gabadhan sodog u ahayd adiga laakiin si xun ay yeeshay 7 qodob ayaad i tusay sidii naag dhalaysa camal aan leeqalay ka waran hadda waxay ahaataba intaana igu filan soo bax dadka dhan way ku sugayaan cunada ay rabaan inaad la cunto marka ay ismurjeen murugtiis ka dhaaf aniga waxuu ma sheegay ceeb way soo bax dadku way ku sugayaan samrad aniga waan maqanahay waxaana ku jiraa shaqo inkastoo aan maqana niyadda iyo qalbiga ayaan ku hayaa markii aan shaqada soo dhameeyo aan soo laabtana familkaaga ayaan kaa soo doonanayaa waa balan isug oo keliya hooy ma aragtaa waxaan استغفر الله طيب استغفر الله استغفر الله إله عافي قبران عادي ما وين قيادة كبر ضفرت أراسك بوحي ودينا سنكا رس جعلاين ميا الله إلهي ودتك وحنا دوق هذا المحس مينا هذا عيب يستجي فير ولا شيء عادي ما يا قبران واحد بدن السمس أنا قلنا يقرن أنا حتى yaabana gacan u taag marka hore aan ku dhahay asagoo ahaa moogta wiilka jeclan haddana adeerka waa kana adeerka waa dhinta haddana wiilkaa soo haray walaashay qorshe fiican ay ciyaaraysa aniga ma fahmin aan ku dhahay ilaa hadda waa la yaabana maxay ka wadaa laakiin إلا أراسك عاد بوحي وديدا سني كان يجعلين كورن أفرت صراحة ما داسين الله لا حتى واحد مفاهمين أني هذا ما هنقولنا وين قيانته هاي لكن waraaqadahan waa cadeen haddii ay magaalada ku faafaan reer damiqaan way u dhammaanaysaa oo sharafkooda dhulka ayuu galayaa mala socota mintaas adiga hooy
subax wanaagsan subax wanaagsan gabadha sodog u ahay ismartiin soo fariis guriga waa gurigaagee xalay dhig badan iga daatay ma ogtihiin marka sidaa darteed abatiidkayga aniga xanuunaan dareemayaa inta sidii qof mindi la gelinaya laga soo bixinaya camalaan dareemaya meeshii xanuun ka dareemaya ma ogtahay maxaa laleeyahay horta eernada xanuun aan ka dareemaya zaa'ida zamiraad adiga gurigan martiyaa ka tahay soo ma weliba marti nagu qaaliya farmaajadan ayaan ku siinaya hal mar dhadhami adaa u bogi doone waxaa laga dalbay aziina laga keenay waxaa maqli jiray mindida laguma fara ka ciyaaro maxaa yeelay shaydaan ayaa saaran oo dabada ka soo riixay dhibaatayna keenaysaa faadma adooraalii cuntada sii soo dhiibaan ku baryaay hoo qabsa fududidaa gabaree maanaa kuu dirsaday naayayaa awood kuu siiya cunto aan aniga cunaaya gacantaada wasaqaysana dhiiggale inaad ku taabato baastaradee xaggeed awooddaas ka keenta waan kaaga digayaa tallaabo noocaasa mar danbaa isku qaadan cuntateeda iska daaya cabitaanaan layaa xitaa ma taaban kartid cuntadayda ha taaban inaan ku dhaa barakala'aanna ha ka dhig qumayaye marwa cadiima maanta wixii ka dambeeya sodoh ayaad ii tahay maxaa tiri naaya adigaaba sidaa soo hadlaaya ii sheeg dhaqaaqan ku dhaa meeshaan ka kac wejigaaga iyo musiibanimadaada ma arki kare qumaya iga hor leexi wejigaaga dabeecadda xunta hay u daba yareen dhaqaajiya ku dhaa caafimaadka cuna waa idinka sii tegey walaashay doona sarxad markii uu baxaya cunto ma cunay abbaayo maya marwo ma cunin okay cunto u sii diyaari aniga ayaa u geynaya ninkayga cunto ayaan u geynayaa waa wareersanahay aniga taasaa wareera waxayba taagan tahay ninkayga shirkaddu joogaa quraacan u geenaya talow hooyaday waxay sheegaysa maku saxneedna adiga waxaa idhaahday beri subax imaa waana imaad aniga soo dhawow xaaladaada sidee tahayna waa ku fiicana alxamdulilaah teeda kale ninkeen asxaabta shaqadaan ku soo bare marnaba lagama yaabo mahadcelintaada inaan ka daalo waxba aniga ha ii mahad celinin mar kale cabaas nimnikaan isaga ayaa abaal kuu galay soo maahan abaalkaas unbaa loo gudaya anigan ugu yaraan rasmad ma
مصيبة الباب سمحوا قراعي الباب كفر رسم حاول يسوي خلنا إسلامتنا وخلي بدلها نقد العسى أما نجيبنا الباب فور الباب مدن عباس أبو كحمة مركز حالتنا اللي كلهم تاوقتها يا قاني تذكر أبو قيلنا أبو أنا مقعنا بكي مقعنا بتالي لا يوكل مقعي سيقر محاول أسوي حقيقة تبداني إدغيسو كلي عاموس كلي وحنو متكفينا نعبنا أبو شرف أنا تاني سودا ديار ويقنا وحلبة ساقلا قري نواي ها ساقلا دي لكن ما شاء الله يا الله مدنه محاول لكن تجيس عمل أكون قطع بس أوسع ناس محاول أكثر محاكا قد عن يقول علي سوي وايس كيف ما ياكل افكع الكورونا فيروس يسكا كلنا waxaan rabaa arin gabadhaada ku saabsan inaan kaala hadlo waana arin muhiima okay waa diyaar soo dhawaad gurigina soo dhaafa fariista si fiican u soo galaa idin dhahay haamadan tartiib maro soo dhaw waan dhawahay mudane Cumar sarxad ma joogan xafiiska ku aragtay asaga wuxuu joogay maqaayad ma fahantay waan gartay wad maasanta garabka galha kale sarxad maxaad halkan ka samaynaysaana cunto ayaan kuu keenay taak markii aad guriga ka soo bixaysay waxa u maadan soo bixin waqtan yaay kullu isku gariye ayaan kuu keenay alaabtaan ururi dhaqso gurigaagana u laabo laga yaabay waxyaabaha qaarna faantiin aanad rabin ciyaartaan gurigurigaa basigadhe aniga mudane sarxaad kafee ayaan kuu keenay garabkiina allaha galo sidii oo hore ii jeclaa marnaba ima jeclaanayo zamrad julsiya maxaa kugu dhacayna sarxad ima cafinayo wax walba aan samey sarxad dabeecadiisa isma bedelaysa wuu iga xanaaqsan yahay kafeega aad buu u wanaagsan yahay si wanaagsan u samays caafimaadku cab mudan cabaas wax walba waa okay dhalinyaradana waa loo baahan yahay mawduucayna guda galaynaa hal su'aalaan idin weydiinayaa waxaan rabaa labadiina inay iga jawaabtaan diyaar waay sheeko isdafaan iga ilaaliya haddii kale wada fa'aana waa xanaaqaya oo dafa ahaanna waa idinku garaacaya waan iska kabtamayo oo keliya
afkayra isdafaa karoonisiisiida ku dhaca balfiiri ninkaas siduu wallahi mudan cabad aniga waxaan bakala saari lahaa inaan kabtan loo tahay iyo dhib loo tahay waxaanay dhabkaa yihiin waan ku wareerna hadee kabtan loo waaya baka iga badbadinina bes midda kale waxaan rabaa zamrad iyo sarxaad wax miyaa ka dhexeeyna ii sheega ii jawaaba mudane cabaas ma aqaano sida aan kugu sheegi lahaa laakiin arrintan anaga xataa gadaal ayaan ka ogaanaan ku dhahay la yaabay nala noqotay mar dambe ogaan mogtay hadda maanta gabadheeda maliixad qolka soo hagaajinaysa mogtahay haba soo hagaajisa maxme warqada ayay ka aragtay hadalka waxba ha ila laabinina si toosa wax iigu sheeg gabadheeda soco yaaqi warqada dhaqso soco حبيبتي كلمة سوكلياني أقوم في الله أديو كليا يا كجعلا يا نيجا waxaad ii tahay sida caad subax oo waqtigaas soo curanaysa dhulkana sidaas falaareed quruxda lagu soo iftiiminaysa sidumiyadii jeclaatayna nafteyda xitaa waan kaa jeclahay gacmahaaga markaan qabto waxaan ka dareemaa naxariista hooyadeydii aan waayay cartankaagana waxaan ka dareemaa cartanka aabbahay marnaba ma jecli inaad sidoodoo kale meel iiga aaddo Zumrad marnaba ha iga fogaanin aniga indhahaagana meel ha iiga weecin aniga maxaa yeelay aragga indhahaaga la'aantood aniga ma noolaan karo ma awoodo adiga la'aantaa inaan wax arko sideen ku awoodaa la'aantaa inaan istaago aniga adiga la'aantaa waxba maba ihee la'aantaa waxaan ahay maba lahanuuba leeyahay la'aantaa aniga waxba ma qabsan karuu taagan yahay war ninkaan nin caadiya maba ahba sheekooyinkan hadduu buugka qori lahay saacaddan lacag fiican ayuuba ku dhufan lahay sidoo kale wuxuu yidhi adeerkii ayaa ammaano iiga kaa dhigtay aniga ammaanadana noocay noqoto waaba aragnaa ugu dambayntii khiyaanaad samaysay caadi ma tiidiyaa warqadahan waa anfacayaan ii aruuri waayo mudan cabaas diyaar waay amarkaagaa jiraan ku dhahay laakiin xoogaa mudan cabaas na afgarana waan ku baryayaa xaaladda waa iska xuntaa mogtahay marka imisaa u baahan tahay 15 kun oo gurguris la'aan okay ninkan haddaba ku siinayo hay gabadheed ard mudan cabaas dhahay soco إيكي صدرك ولا خير لي صدراتي ذنك معناه وحنا ولا جدا بنك كورة يا ترى ذيك مقطع عادي بتير هاي بديار واي ووري gaarigan wuu kala daadsan yahay yaa iska leh bal sheeg anaga ayaa iska lehno aniga soo gato macnaa 18 sano jira moogtahay waa qaan gaaro warqad ruqsada la ii dhiman soo gasto 18 sano gaartamiya ma sha Allah waad weynaatay eerna igu tal ma hinay anaa ku bari lahaa gaariga laakiin dib ma laha warqada aad wada lahaydaan ku soo gonay macnaha laysinka ku kaxeeyaa waa ma santa mudan Cabbaas ma salaam hay ma sarura yiriisay soo barbar gabadhan walaasheedu inta taagan waa looga sabri karayaa xataa cagaheeda sidoo kale waay sabax shirkadan aadinay shir ajira sabax ninkii saraxada aanu tagayna wax walbana waa tusay alaabahan aan hortiisa dhigaya bal ka waran hayde beenina abaya gidalib hayde
laga yaabaa ubaxan markay aragto furniinka inay ka laabato taasi soo macquul maaha. ninkan xaaladdu ku jiro markaan arka calooshaa bay horayso. alfada iska gumaysato ma og tahay waa maskiin sideen yeelaya xaalad xunuu ku jira ilaahay ka saare. ها والله قالوا يا سترة الله هيا عدك يا ريم هو هاتلو يا عابية يا عابية يا عابية نمروا محاد عينا قدها فيري قدها محاكو تشري مبلاية انت فيري قدها فيري ها متوبة قليدة يسوبة سيبنا راتب صبح ريا صبح نعم وهم عرقنا وكسو قدا ما يساسو كجرا دولي واي جيرا نعم دولي باتك بغانا سألوك سيقادي يعني جير ولا الكيس واي ومالنا فيرنا عديقنا نقو فيري يا قاني وانك عبسنا يا حبيبي عبسنا ما كوري أنا جير نقو بغانا أبا ماشي واسوسي نبس أنا كادري سبدي دولي بغايا وانتي هذا ساستي سنتي waxaan ku jiirka raadinaya abgeedkii lagu shidi jiray sugadu adiga waan ku baryayaa wax yar xitaa sii joogno okay hada sarafkan joogaya waan kula joogaya taas ka haysaa waan ku daali igraal noqoya astaghfirullah namwaalatay shaah kulal ayaa yaalo halka waan ku keenaya si fariisaya fariisaha ismartiyeenine marwa samred mudana sarxad ayaa alaabtan kuu soo gaday adiga inaad gashatana wuu rabaa adiga ayuuna kuugu talagalay alaabtaana sidoo kale asaga ayaa kuu soo gaday wuxuu ugu talagalay in adiga aad xirto alaabtaan صعب عافية وصل naagtooda miyaa ugu daane badda waan sufuri rabnaa labada iyado macnaa qaala igu daasho waa dhibsaday maxaa u furaysaana ii sheeg teenna ma jecla iyadu heedhe say igu qaylinaysaanaa badaalay waan ku baryayaa ha ismurjinna adiga murugta iska daa wax yar dhoola caddee igaraal noqoyaa moobeelkan inaad qabto muhiim waaye okey
maanta okay waaye hadda dabinkan wuu ku soo dhacay ninkan heer damikaar ayaa sodohow gabadhiisa ayay qabaan halkan ku dhahay ma fahantayna saaniya halkan maxaad ka samaynaysaan mise saakaa shaqo ka bilowda meeshaan runaanta aad iyo aad ayaan ugu farxay khayr ilaaha ka dhigo wax walba way hagaagayaan maxaa kugu dhacne wejigaaga wuu busbuusan yahay dhulka maa ku dhacdane runaanta dhibaatadana waad ka gudubtay wiilkeeni waa la aawine qolka shirka ayuu ku jiraa yaa shirka ah oo aniga la'aanteeda maa shirka la bilaabay allah allah ixsaan jawiga soo okay maahana haa mudana waa okay walaal cumar ayaa ii caawiyey wuu mahadsan yahay jawigaygana waa okay hagaag waa si wanaagsan waa ku salaamay wiilkan adeerku ahaayo jawigana waa maasha allah waa u jeeda maxaad iigu yeeri weysano nin imaan lahaaye adeer kulli dhibta waad ka gudubtay wax miyaa ku helaynaa ii sheeg may wiilkayga waan fiicanahay kastoo eernadaa xawaa xir furantayno maxaad samaynaysaan maamulka shirkadda ayaa shir jilaayad qabtay shirkaasna wuxuu yahay adiga in shaqada lagaa saaro macnaha xilka aad haysada in lagaa wareejiyo adeer waxba indhaha taagin adiga waxaa loo baahan yahay carruurtaada iyo familkaaga inaad waqti la qaadato anigaa booskaaga ku bedelaya dhibaato ma lahan eedadayna si fiican uga sheekay qof weynaan iyo matiidde sidoo kale walaalkay caadil kursigaas ayuu fariisan jiray idinkoo dhanna waa idin jeclahay laakiin walaalkay hadda wuu dhintay soo maha ilaahay naxariista jannaha siiya kursi lagu fariisto iyo hanti layska haysta adduunyadan waxa ay taraysa haba yaraatee ma jirto halkii loo badna ayaa la tegayaa wiilkan adeerku waayo adiga sidaas ma u fahamsan tahayne kursigoo adeerka saan ugu fariisagana waad ku faraxsan tahay soo ma arrintaanna mar hore ayaad ku fikiraysa wiilkan adeerkuaasoo sidaas ma bal fiir waraaqahanan gacanta ku hayo xaggeed ka keentayna qolada boostada ii keentay aniga asxaabay sir yaroo qarsoona idiin sheegaya sarxad iyo zumrad way isjeclaayeen yaraantooda way isjeclaayeen kadib isaga wuu baxay tababar ciidan ayuu aaday adeer igu filan macquul miya arrintan maxaa yeele adiga iyada yaraantiina ayaad isjeclaydeen kadibna tababar ciidan ayaad u baxday markii aad soo laabatay waxaa aragtay adeerkaa oo zumrad guursaday ujeedka hadalkaaga muxuu yahay taliya wiilkayga isdeji indhagayso zumrad aniga kuu kaxeenayo waxaan fogeynayaa meesha ay joogtay si sharciga u guurso inta aad sheekooyinkan foolxumada aad ku jiri lahayd waxaa wanaagsan hadalkan ku dhahay in aad maqasha maskaxda deji qof xun in aad tahay mar hore ayaan dareemay weliba qalbigaagana uu xun yahay wax qaldan inaad samaynaysana waa la socda naag darteed iyo hanti adduunya waxaan oo dhan u samaynaysaa soo ma isku dayin go'aankaa doonta inaad igu xukunto marna rukmin kartid go'aankaa doonta maxaad rabtaa adiga inaad samayso ma dilaysaa kaalay dil halkaan ayaan kuu taaganaya wax alaale waxaa rabta iigu samee war aniga hal maroo keliya ayaan dhimanaya adeerkayga caadil nafteeda ayaan u hurayaa adiga maxaad u huri kartaa ii sheeg yah maxay tiri nafteedaan u hurayaa hadda miyaa naftaada u huraysaa naag darteed ay waxaan dhan u samayso warduliho naga tag
baxdhe ceernadooba igu kiciya ceernada haddaysan i xanuun lahayn kan mar hore ayaaba dili lahaaba ceebdarada dhan ma samayn lahayn waxaasoo dhanna waxaa keenay yaraantiisa si fiican u soo canaananino naga tagdhe fariista idinkana tartiib isdejiye allah haddaba asxaabay aniga waxaa ila wanaagsan go'aankayna dib uga laabataan walaalkii caadil aad u joogi lahaa xataa sidaan u dhihi lahaa soo ma aadaad u mahadsan tahay cabbaas maxaa kugu dhacay ilaa hadal wiilkaygino xaaladaada maxay sidaan u tahay hay murjinna wax ii sheegno waa kuu sheegayaa hooyo wax walba anigaa kuu sheegaya laakiin hooyo ma raba aniga dhibaato inay ku soo gaarto isdejiyaa hooyo hadda ka hor adiga soo ima dhihin sarxad iyo zumrad waxbaa ka dhaxeeyo hadalkaa dhehaysa sax ayuu ahaa horaa loo yidhi kor wada indho ka hor sarxad intuusan u bixin tababarka ciidan gabadhan ayay isjeclaayeen gabadhanna maqaayaddii ka shaqayn jirtay sidaasay kuleba isku barteenaa u malaynaa hooy bal fiiri sarxad tababarka ciidan intuusa aadin ka hor warqadan uu qoray gabadha ka war waan dareemi karaa waanan ogahay aniga waan baxay isagaan u tagay waxaana rabay in aan waani laakiin hooyo wuxuu sameeyey mala socotaa ma isayn xataa adeerkaa wuu xanuunsan yahay dadka meesha ka wada buuxo oo wuxuu damcay inuu ii garaaco ka war haddii dadkaas meesha joogi lahay si xun ayuu ii garaaci lahay taas waxaa sii dheer isaga wuxuu rabay shirkadda dhan shaqadeeda inuu iga saaro oo ii fariisiyo sababtuu samaynaya waxaas mataqaan gabadhaas yaanyooga darteeda uu samaynaya wiilkan adeerku waa yaraantiisa aan soo barbaariyey abaal wuxuu iiga dhigay inuu sidan i yeelo laakiin aadaan uga xumaayo wixii igu dhacay hooyo niyaddeeda waxyaaba xunxun aan ku soo dhacaya maxaa waaye ii sheeg waan ku baryaa si aan kugu sheega maba aqaanba ii sheegno walaalkay caadil markuu zimrad guursaday hooy waxaa laga yaabaa sarxad inuu shaydaan qaaday uu sidaas waxun ku macnaha adeerkiis caadil in uu dilay isaga macquul maaha macquul maaha ma dhici karto inaan keligay ahaado ayaan rabaa abbaasiga tag waan ku baryayaa keligay inaan ahaado ayaan rabaa iska ba waan kaa tegayaa haye hooye hooye ha ismurjinin waa ku baryayaa abbaasoo kumalay iska bax keligay inaan ahaado ayaan rabaa iska bax waan ku baryaa qalbiga ayaan ka gubanayaa
geldi de çabucak evimize gidiyoruz. adiga balan ayuu naga qaaday anaga waankana baabuurkina wuu imaaday mudane sarxad aad ayuu u mahadsan yahay abaayo ani adiga waqti aan ku wada sheekaysana waan heli weyne adiga mudane sarxad maxaa u tahayna aniga yacni annaga macaariif leenaa soomaaha zaniya kaale gaariga ka soo tago anigaana kaale zaniya meel ayaan rabaa inaan ku kaxeeyo soo baxi soo raac iga raali noqda intaan idin mashquuliya habeenkana ha idiin wacnaado talow labadooda maxaa ka dhexeeyeen anigu waan la yaabay mudane sarxad gabadha shaqaalada cusub baska xatii wuu ku dajiyey sida uu fiirina dadabuu guursadee maxaa dhaca laakiin alla ilaahayo waxaan u malaynaa gabadha si qasaba inuu ku guursaday maxaa idinka khaldan idinka zumrud iyo sarxad labadoodaba jacayl ayay isku guursadeen waxaas ma jiraan afkeena noo furma u hadlaysiin idinka qumaya nooceetaa baastarad yahay qof nooceeya ayaa tahnaayaa bini aadan noocee laga rabay ii sheeg wiilkayga sarxadaa qalbiga ka xaday dabcan marka hore caadilay sheekada ahayd marka aad ka soo taqallustay ayaad sarxad u soo wareegatay uba mid isuba bedelaysaa miya abeesayee cuntaa sidaad ku awooday naaya familkayga ayaad baabi'isay qofoo familkayga ka mida uma aadan naxariisan qalbi dhagax ayaa taa abeesayee cunta ah naaya wiilatayda ayaad isku dirtay sarxad iyo cabbaas adiga darta hadda adiga dartaa isma fiiri karaan labadoodu way isdagaashay waxaana soo ogaaday wiilkayga sarxad adeerkiis caadil inuu isaga gacantiisa ku dilay waxaad ku tiri adeerka ayaana horjoogi ka soo taqallus soo ma aha markaas kadibna labadiina waddadiina waa idiin firaaqooday sidaas ayaadna isku guursadeen hadda waad qanacsan tahay igu filan maya ma dul qaadan karo igu filan naya gurigayga iiga baxaan ku dhaqumaya nimadaada gurigayga inaa igu jirto ma doonaayo dharkaaga aruurso walaalay waa ku baryayaa gurigayga iga bax ma doonaayo wejigaaga inaan arko wiilashayda ayaa dabka dhexshida minayga waan ku baryayaa iiga bax gurigayga wax walba aniga ku dhaha ma aaminaysid waxaad noo malaysaa aniga qof dembiile aynan ahay waan ogahay wax walba oo dhaha inaanan ku qanci karin sababtaas ayaan u aamusanahay laakiin hal mid ayaan kuu sheegaya dhegayso sarxad aniga aad iyo aad ayaan u jeclahay dunidan sidaan u weynay isaga oo qura ayaan ka doortay jacayl iyo wax lamida afkaaga wasaqaysan ha ku sheegin waxaan waawaalinayaa dadkayga ayaad isku dirtay reer Amerikaan oo dhan adiga dartaada ayay isku dagaalayaan qof la heshiisa gurigan kuma noolo wax walba adiga ayaa u sababa waxaa taa biriq gurigayga ku soo dhacday guriga iyo dadka ku noolaaba waad saamaysay waad baabi'isay adiga dartaada ayay dadkoo dhan isku dagaalayaan waxaan ku baryayaa intaan ka badan ma dul qaadan karo gurigayga iiga baxdigoo baryahayga taagan tahay waxaan ku baryaa gurigayga iiga bax bannaankaad gurigayga ma doonaayo wejigaaga inaan arka iiga bax gurigayga kuma arki karo waxaan ku baryaa sarxaad kaala aniga isoo raac wiilkayga cabbaas waxa uu sheegaya sax miya odagaas waalanay weekiyaha warkiisa ha dhegaysanin hana aaminin waa beentiis cabbaas damrikaan anigaa ku tusaayo waxa uu yahay xaqiiqadiisa dhabta ahna anigaa bannaanka kuu soo saaraya wiilkaaga aqoon uma lihid beentiisa hadda ha ku sirmin ha kadsoomin
yeetaa gabadhan anigaa ku barayay zaaniya ayaa la dhahaa shirkaddeena ayay ka shaqaysaa wax ayayna rabtaa zaaniya inay adiga kula wadaagtay kuu sheegto arrin ku saabsan wiilkaaga cabbaas damrikaan ma cabbaas baa ay tiri sarxad warqadan siduu u qoray run ahaantii waan la dhacay aniga taas waxaaba sii dheer ereyada jecel uu ku qoraaba ka sii dara gabayada ku qoran haddii aad aragto waad yaabaysaa aabbaha jecel kuwa noqda ninkan waan ogahay waxaasoo dhan ayadiisu ku mashquulinaya laakiin ma ogolaanaya booskan in laga wareejiyo shirkaddaana madax kale ay yeelato nafjahaan haye waad shalaysay kadibna gurigaa dib ugu soo laabto sama abbaas gabadheeda guriga ma joogto aniga saan u raadinaan waan daala telefoon ayaan ka wacay telefoonkan igama qabanayso talo waxaa gaa jirtaa gabadheedi meel iigu sheeg kaale adiga maxaad ku hadlaysaa gabadha guriga ma joogta maxaa la dhahana intee gasheen dhulka may ka dhex baxday abbaas waan ku baraya gabadheeda ayaan u baahanahay ii soo gabadheedi wax walba kugu qaadata gabadheeda iyo kenya qay aniga yaa gabadheeda saacaddan maxay samaynaysaan gabadheydii aabbo aabbaya aabba ma ay tiri soo deg bax soco guriga tag soco guriga tag istira mashiinaya balan waxay waa inaan xisaabtanaan iyo adiga habeen wanaagsan tolkahaan waa adiga sooma ninka habeen kasta gabadheeda mesaj kuu soo diro waa adiga haye barashadaada waan ku faraxsanahay gaariga innaba caadi maahayaa isbiidkiisa waa imisa 290 waa adeer intaasoo u dhexeeya maasha allah beella waay anigana feer 280 kilogaram ah waa inaan kugu dhuftaa haddaan gartay eega xumaa tolkahaan la dhahaya aabihiis lacagta laha ayay gabadheeda raacday wuxuu rabaa gabadheeda inuu fadaxaysto sharafteedana ku ciyaaro soma laakiin kama yeelay balan waxay waa inaan u tagaan ka soo cadgoosto waan baxaya anigaana la soo xisaabtamaya isaga hay adiga ma arkaa waxa dhacaya 2 maalinoo keliya gurigan ka maqnayd dhibaatada dhacdana waad aragtaa gabadhaada noocay noqotana waad aragtaa nafjahaan idhagayso aniga waxay la wanaagsan gurigaaga inaad joogto mar dambe inaad ka tagto gurigaaga iska joog anigana hadda waan baxayaa gabadheedaan soo badbaadinaya okay saasaan isku ognaa waana gumaysay asiga wax walba ayuu nagu sameeyey xaalad xun ayuu nageliyey asaga ma aqaano waxaa ku tilmaamo agoon ayaa tihiin soo maaha labadiina waalidna waa ay geeriyoodeen haddii aanan qaldaneen walaasha 18 jir ayay ahayd soo maaha waxaan oo kale sidee ku dhici karaan talo sidee macquul ku tahay wiilkayga waxyaabaha noocaasa inuu sameeyo waxaan ku baryaynaa nacafi gabadhaydi daladayaan kaa galnay iska keen cafi gabadhaydi waxaan wax loo dul qaadan karo maaha
qaladayaan idinka galnay iska keen cafiya walaashaana naga gaarsiiy inay iska keen cafiso waxaan inay dhacaan weligay kuma aanan fikirin mana jeclayn war cadiima sidaasaa dhihin adiga waxaasaas dhihin gabadhaydi waa sax qaladayaan idinka galnay iska keen cafiya ma jeclayn waxaas inay dhacaan anaga alla ilaahayo sabarna sii doqonsana oo axmaqsana ninku cabaasoo gacanta allaha kaa gooyo siduu ku awoodo gabar 18 sano jirta inuu dhibaatadaas u geysto waxaa kaaga sii daran gabadha xaamila ay ahayd cabaasoo nacladii allah kugu dhacdo weligay kuma cafin doona axmaqsanaa qofku 18 jir ayay ahayd weliba xaamila ayay ahayd tartiib u istaag cabaas meesha maxaa ka dhacayn labadan gabdhood labadan dumar isku tuula ayaan ahaan jirnay halkaana waxay u imaadeen in aan aniga caawiyo sidaa darteedaan marka ku caawiya haddana waxay rabeen inay baxaan runta ii sheega cabaasow ceeb caleeg xaaskayga been miyaan kuu sheegaya hadda iska baxa haddii aad wax u baahataan isoo wacaya mideeda kale gabadhan si fiican u daryeer gabadhayda inaan kaa fogaada lagama yaabo xil walba garabkaaga ayaan ahaanaya inaan ku cileeyo macquul ma aha ha iga tegin uf cabaaso waxaan sidee ku samaysay sideed ku awood waxaa inaad samayso wax dhintoo bilaad miira ayaa tahay cabaaso أبا خير شيء بهويني ماذا حلقة محك سميني سانا أبا إلى هذل ما حد عي خير مجرو أرض وجهك يا قري وجهك فول حمديسة أبا محك آخر دم حسنا وقول رقمسا أنا جاي أقرب كسينا يشيك وعاو ما هذا كأجنب هنا نيجا سقطك هالكان وكلية لكن أبا أنا في جهان ما حسدان يقول هذا لسانه عيب ولا سعت الله خوف وصل الله تيانا محكى لا والله ما الأرض قتك نفتن كنا فينا هذا نيجا رقم مي فانتي اسمي أنا أوكي هدبا لكن متى يكون شيء جاية ساعة وحي لقى بلا ولا تمدين ماشان يكون ماتي ما لقى يا ورطة دينا ماذا naxariis yar xataa iskuma falin hadda wax u baahatana iima imaan kartid lagama yaabo hadda kadibna walaashii ay ahaan jirta xataa inaan dhaho badnaa hadal dambe haddaad igu soo celis naftaan ku dhaafinaya orad wajiga ayay ii qarinayaa waan ku fahmaa baayo daamadna friijiha qasrigan hadda kadib way kaaga dhamaataa adiga daamad cusub ee hadda daamad fadnaa ayay noqonaysaa yaa ilaahay haddaa uur qaada sidoo kale waxaan noqonayaa hooyo iyo suldaamadeeda maxaa sameeya hadda talow sidee ninkan ugu waalaa aniga yaa allah ilaahow ii kas cabaas inuu i jeclaado insha allah qofa aniga ahayn ishiisa ma qabanayso cabaas
niyaasi guriga kan inuu yahay maiga hubtaana ها مدنه beedsa mana dalbaane maya aniga weli baa imaysan qaban beebi ya qofkii maalin ku gaada habeenkaa la gaada aabe ii qabta war gabadha ii qabtay tolkaha waxaa ku samaynin waan ku baryayaa waxaa ku samaynin tolgahaan idhagaysoorya gabadheeda maxaad ku samaysana gabadheeda koombadeeda maad badgaadaysaa sharafteeda miyaad rabtaa inaad ku ciyaarto gabadheeda waryaa isiida war idaayaan waa dafari araga xunle waan ku baryayaa waryaa tolgahano intee goorgoortaa ii sheeg gabadheeda maxaad ku samaysana ii sheeg meeqa sana jirtaa meeqa sana ayaa jirtaa waryaa 19 ayaan jiraa 19 sano ayaa jirtaa dalka maad u shaqaysid intaad dhoocilaha ka daba wareegaysid maxaa waxaan oo dhan u samaynaysaa war fiiri gabadheeda shalay ayaa mooto u soo gaday weli way ku daba socotaa gaarigaagay raacaysaa maxaad ka damacsan tahay gabadheeda ii sheeg war maxaad ku samaysay gabadheeda ood ku akhrisay maxaa u sheegtay gabadheeda waryaa ii sheeg dhegayso waryaa hal mar isoo fiiri bal istira mashiino kaalay si fiican isoo fiiri gabadheeda waan ku baryayaa idaa naga foqni jaasan yahay halka xun aabo waan ku baryayaa ninka dilin aabo waan ku baryayaa u naxariiso iska geedaaya qalbi naxariistada kuma yaalamiya aabo ha dilin u naxariiso idaaya idin dha iga foqa eela dafaarada iga foqa idaaya waa idin baryaaya aabo waan ku baryayaa ha dilin inta ma kugu filan tahay maya kuguma filan adar igu filan niyaasi ii xirxira ninkan ii kaxeeya meesheeda ii geeya ana aqaan tolkahan waa idin baryayaa isiidaaya idaayadna idhaafa tolkahan idhaafa idin baryayaa idaaya war naga laaxda ninka maxaa ninka qaldan tolkahan waa idin baryayaa isiidaaya tolkahan rastam maalin walba waan cadayaa waan kurilkaan caddaan ka dhigaya sababta caafimaadkayga ku jira caafimaadkayga ku xirmada dhahdayna oo masaasa hadda dhoosa wallahi waad iga qoslaysa maanta hadda xaggee u socotaan ii sheeg bal waa u buxuusaaye saaxiibkaygaan la kulmayaa ya saaxiibka maad dhahdayna oo adiga saaxiib miyaad bal leedahay ii sheeg weliba waa qaari jecel baan ku yidhi adoo kale maa hadda igu qelqayliya haye say ma dhihi jirin waan isfuraynaa soo diyaar garow baan ku yidhi saddexdaba waa kugu jiidayaa agtaadana ka soo dhawaan maayo yaqi muxuu dhawayaa ninkaane ya ninka muxuu sheegayaan muxuu dhaa isaga hey rasmad balka horadaada ka tagta maxaa kugu dhacayna yaqi ninkan maxaa ka qaldan maalmahan هاي أبي ودقوا وها وقواني يا أخي وحسنا وحكل دقني مو حلا مجرى أنا قلت نكمل مالما هو كشكي حالتي سعادة ما بدنا بريويس بدل ها كريت بكان دي براروغا يا البحي الله انت دي ابو الله يلا يكالي لافتي قلي inantaydii aabba soo dhowow waa ku xiisa waan dhowahay aabba anigana sidoo kale anigoo sidoo kale laakiin aabba inta u soctaa maanta waad labisan tahay aabba inta u socotaa ayaan ku dhayla hadalna inantaydii asxaabta meel ka wada shaqaysanaan xoogaa shaah soo wada cabina isla soo bataalana beela waay way ku anficaysaa aabbo laakiin aabba gaarigan yaa lehne hooda carab dheer weydii taa aabbo gurigeenna maa laga leeyahay
basam soo dhawow maanta caadi maba tiide tan kale aniga waxyaalo fudud ayaan keenay soo gal marka aan cunay waan ku baryayaa xishoonin dee haddii kale waan kaa caroonayaa soo gal marka shiix ma jira soco warqadaha imise ayaad ka siisay إيشك هاي قاريجان إمسايا كسب حسين ما يقولي وحس مجرى يا أخي لعقنا أنا كمان أنا كسب حسين كلها هاي ولا شيء مليحة أعمل عباش والخواك قد إيرنا نايا إيجا مسا كلها جوري محكو عينه وما حيو حكوا لس جوري معقوبة هني ما حد سميسي يا باي هذه قدرت أي المدن عادل وقرصدي wax waliba waan ka maaranay si aad adiga wax u barato oo anigoo kale aad u noqoto sidan maxaad iigu samaysay abaayo wax walba waan u baahnaa adiga dartaa ayaan ugu maarmay taas baddaada maahan ee ka bax waxaad wadaa laba shimbir hal dhagax ku midtaasna macquul maahan guriga adiga aad ku nooshay ka ku noolnaa isku mid ma fiirka kada aad wadata lacagta qiimadeeda ee joogtaan loo bilaad ayaa bilana mala socota adiga naaya sharaf miyaad leedahay sarxad aad xiriir la sameysay anagana ma maleeyad ma yahay awsin war adiga waxa tahay qomay anaga nala soo diray ha sharaf inaad leedahay isku sheegtaa sharaftaada ii sheeg sharaftaada sharaf miyaad leedahay markaas aniga waxaad adiga samaysanaysaa miya kaama yaalahay ku gabaryaa waa ku xisaabina هو قبس مليحة هذيك إسكالة لورك قبل الزمرد وحنا هذيك قاعدة كودرك قبل الزمرد يريست إذا لا إله إلا الله لا إله إلا يريست إذا مليحت قبل إذا إزدجي أم كبريا يا أمس ولا قدبه أمس يا قبل إذا أوني ولا قدد ديك ويساني كنا وانوينا أمس وان كبريا ما حاول قد أمس يودي ساقتي فيك حتى وحير ما في رسنكرك ورن وأنا وقصة ماشان أمس إلهي ونقصوك نولش أنا محيط قبل إذا أمس كبابا قدر هذا وحارتن كتمينا أمس لي وان كبريا يا أمس بس إلهي ونعمانس إله وربي رحمانه استغفر الله توبة باي واقف يا يعني مروينا كورسو هذا ما يقص واقف يا بدبار وعرواني هنا وعبرت هذا ناتك يقرا بس واقف يا وعصم انه لسيدنا بدبار باي عسى يا يقتا واقف يا بالك قربا يا باي ابا واقف يا بدبار واحلى سمين رشيد وابا زاديك أنت ورد ما حد كسمة ستولك هاني شيك gabadheedu waxba ku sameyn siduu kugu sheekeeyay ilaa ugu sheekeeyay waa canaantay hadda kadibna agtaada maba soo istaaga halkeeda wadiina isbitaalka la geenay oo la soo jimcinay walwalin gabadheeda aniga ma jecl xaalad noocan inaan idinku arko adigii walaalkan adduunkan idinkugu jeclahay wax walba ayaad ii tihiin aniga waqtiyada qaarna markaan waxaan loo baahnayn arkano waan xanaaqa anaa iscaaya xataa gabadheeda adigii walaalkaa la dib nolosheeda ayaa tihiin jaceylka hadda aniga idin siiyey aniga hore uma soo helin
waalidiinta sidaanoo kale imaysan soo jeclaanin laakiin gabadheeda aniga aad baan kuu jeclahay adiga waxaa macquula inaad i jecleen adiga sidoo kale qof kalena uusan i jecleen laakiin gabadheeda aniga waan ku jeclahay adiga kaal gabadheeda laabta ii geli aabba macaan waxaa tahay indhahayga nuurkooda gabadheed orod hooyadaa guriga kuu sugaysa iyaysan kaa walwalayn u tag bax orod gabadheeda bax socod gabadheeda alla ilaahay aa caawi gabadhayda xaggay jirtaa saacaddan xaggay ku maqantaa gabadhayda haa gabadhayda adiga ma fiicanta ma caafimaad qabtaa gabadhayda waan fiicanahay hooyo hooyo aabba wuxuu sameeyey ma taqaanaane aabbaha muxuu sameeyeyna ii sheeg bal hay ma aragtaa gabadhaada waxaan kaaga ballan qaaday inaan kuu soo celinay haddana waan kuu keenay maxaa yeelay aniga ilmahayga waan jeclahay familkaygana dhibaateer inay soo gaarto marnaba uma ogolaanayo haddana waatan gabadhaada waa kuu keenay hortaaday joogtaa adigana waxaan kaa rabaa gurigaaga inaad iska joogto madaxadigan iska dhaf gabadhaydii ord qolkaaga fuul kortaca anigaa ku imaanaya orday gabadhaydii ha cabsan oon ku imaanayaa qasrigan markaa imaanaya da'deeda waxay ahayd 18 jir aadna waan u yaraa qasrigan ayaan kusoo indhafartay wax walbana qasrigan ayaa ii ahaa markii aan weydanaadayna adiga ayaan ku jeclaaday weliba xad dhaaf balse adiga jecelkas xaggaaga waxba kama ahan mar walba waxaad dhahdaa layma jeclaa anaga waa la isikiyaa teeda kale waa lii riixaahaa dhahdaa balse xaqiiqadaa waxay tahay adigaa qofcana cabaas dadka adiga ayaa xumeeya teeda kale had iyo jeer waxaad u malaysaa dadka in lacag lagu iibsado oo suuqaad ka soo helaysid gabadhiyeeda 18 sano jirta soo maaha oo weliba boorta inta kortay iska soo tuurtay or ayay kuu lahayd soo maaha cabaas runtii sheeg yaa arrintaas adiga kuu sheegayna ciddii sheegtay maxay tahay muhiimadday kuu leedahay cabaasoo cid ku nacab ma lahan ee adigaa qof xun oo weliba dadka nacab runtii rajo aad weyn ayaan kaa lahaa balse maanta wixii ka dambeeya sidii sanaa walaasheed oo buurta isaga soo tuurta weliba nafteeda ee u weysay ayaan anigana rajo walbo aan kaa lahaa aan u waayay cabaas rajooyinkayga dhanna saas ayay u baabi'een nafjahaan maxaad ku hadlaysaana waa go-aankayga ugu dambeeyey intaan noolahayna lagama yaabo cabaas oo inaan ku cafiyo hadeertan dharkayga inta soo qato gabadheeda soo wata ayaan qasrigan gabi ahaantiisba isagaga tegayaa dib inaan soo laabtana lagama yaabo nafjahaan ha bixin nafjahaan arrinta saaniya ooya yaa nafjahaan u sheegayna yaa brogaraamkan ku shubayna saraxaad waxaanoo dhan adigaa sameeyey soo maaha suhaadaan maxaa dhacayna khayr sheegba adiga mar walba guriga maxaad ugu carartaa keligii ina ahaada ayaan u baahanahay waa ku baryayaa iska bax idhigeysa gabaryahe adiga dartaa miyaa hooyadaa lagu qaylinayaa ii sheeg yaaqaa xishoonina ii sheegna iga fogasoo kuma lihi afaanayka soo galana iga tega ayaan ku dhahay na maxaa sidaan iigu qaylinaysaa ii sheeg waa kaa weynaa ixtiraam ayaan kaa mudanahay naagtan doqol ayaan u malaynayaa horteeda ka leexa ayaan ku dhahay bax wejigayga ka fogow ayaan ku leeyahay nayrey dhegeyso
aniga waan ka weynaa ixtiraam ayaa kaa mudana sidaan igula mahadli karta cabbaas ayaa qabo taas waxaan la socdaa aniga cabbaas ay qabay ku leedahay qasrigan waxaad ka tahay waa laga dharagsiyaa waana la socdaa abaay maxaa kaa qaldan wejigaa waa kula balbeena iga hor leexo waan ku baryayaa iga hor dhaqaaq aniga ayaaba kaa qaldan xaaladaada ku weydiiyey adigna sida hooyadaada kale mas ayaa tahay naaqeele marba iga tagaan ku dhahay kabaha ii maqashii soco gabadhaydi dadka sida loo tarbiyeeyo waan naqaanaa intaasi waxaa dheer oon kuu ballan qaadaya agteenna ciso iyo sharaf inaad ka helaysaan waa waree qoftaana maxay halkan ka samaynaysaa cabbaas wax walba oo jira waan maqlay sarxaad soo istaag gabadhan gurigeeda gee waa xilli dambe dhaqso hagaagay waaya hooyo cadiima garabkaaga ilaahay ha galo habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay gabadheedii insha allah goordhow waan kulmaynaa hooyo gabadheedii sohandaan waan keenay gurigaan ku soo celiyey sharafta familkayga in wax la yeelo marnaba ma ogolaanayo master gabadhaada sharafteeda ayaad ka fikiraysaa mid kala masaakiinana sharafteeda dhulkaad la gelaysaa oo waad ku ciyaaraysaa tarbiyada noocaasa xaggeed ka keentay waryaa maanaa noocaas kugu soo barbaariyey sideed ku awoodda waxaan ina ku samayso soomaalid waa gabar masaakiina waryaa doqonyaho eebaa lagu hadla gasha cabbaaso ilaahay raalaha ka ahaado runtii xanuunku iga baaba'ay qalbigaygana wuu degsaday hadda nadiifaan ahay abukaata ayaa wax walba hagaajinaya waad arki doontaa muhiimadda waxay tahay inaad adiga caafimaad qabto sarxad sidaan ha igu samaynin umaadkaysan kara xanuunkan inaan maro waan ku baryayaa adigaa waddadan doortay zamran wax walboo dhexda yeelana adiga ayaa abuuray marba marka ka dambaysa arrinta dagaalkeeda waa uu sii ballaaranayaa gabadhan sadoodu ahaaye maalinkada khasrigan timid ilaa iyo maalinkas maanta hal maalin kumaana jeclaan balse adiga waad i caawisay awkaati aad barteen awkaato fiican ayuu ahaa run ahaantii abaal aad weyn ayaan ku haayaa ragga khasrigan ku noolne ma aha rag lagu kalsoonaan kara taasaan kuu sheegaa adigoo jecelo gurigan u jooga ayaa naa kale kugu dulkeenaya kulli waa danaystayaal middaas maankaaga ku hay maalin waad soo xasuusan doontaa walaashay erigay dhiisna sax waaye ayaad i dhihi doontaa hay maca salaamahe
yahay sidan tallaabada noocaana sideed ku qaaday ii sheeg maxaa kugu kalifa gabar sharafteeda inaad ku ciyaarto waryaa tarbiyada noocaana xageed ka keentay nolosheedii noocaan oo kale ma aanan arkin gabar masaakiin ayaad sharafteeda ku ciyaartay maxaa kugu kalifa cabaas ii sheeg maxay tahay sababta war maxay tahay sababta sidan u samayso maadii jawaabtid sidaas dhihin waan ku baryaaya maxay tahay sababta kugu kalifa wiilkayga sarxada masaakiinka inaad been ka sheegto oo aad igu dirta cabaas sideed waxaan ku samayn kartaa عباس معاك قلت معاك قبل مساكين تعرفت ذوق عيارت ما حتى دبات انا لقى لقلنا عباس عباس ويلكيغي مع سيدنا وسميسي معي حالتين سيدنا وطاي مدوين قدام بابا مرقية دبات سايان كفي حلاناي عباس هذا أقدي باتدا أنكو سجنا إياه تكلنا نوكو سيدريسا أوجو أدونكن ولا تجايا قفل من مالنتي سايو منايا إلهي هرتي سقفل بوح أوجست أيو كلا كل مايا ضد كذا دوكو كعقابتين آخر أيا لجا جوينايا عباس إلهي يا إلهي يا مروة في عن تهينا هذه محاكو قدعي هاي وريا محل عينه مدن عباس تقصي إما وقريا محل يقبل أنت هذا كوي ماذا أرنكو سبسن سهدان وين سهدان محل كل عينه مدن تقصي إما وقريا نيجا أرنك شرفك سبسن إيجا صحنك سهدان محل كسمي maxaa gabadhayda ma ii sheegaysid miyaane maxaa waayna hooyo meesha u orodayno adiga oo weliba aabbaha uu kaa soo kaxeynaya saaxiibkayga ayaan la jooga hooyo saaxiibka kee waa inay sheeg saaxiibkee waa ii sheegne tolkahaan waay hooyo gabadhayda aabbaha uu ku dilayaa weliba keligaa maahan adigii ninkaas naftoodii dhaafina idinma naxariisanaayo waa idin baryayaa aabbaa dilin waan ku baryayaa aabbo isii daaya waa idin baryayaa iska daaya wiilka tolkahaan waa idin baryayaa sii daaya waa idin baryayaa idey warna daayaan ku dhahay iga foq runtaada miya aabbahay dilayaane ii sheegnoo hooy midaas adiga waxaas ma jiraan yaaqay aabbahan cid uu dilaya haba yaraatee malaa mii fahanti run ahaantii nolosheeda qof sidaadoo kale iila dhaqma ma jiro dadkoo dhan waxay isku dayayaan inay aniga ceebaystaan laakiin adiga waa iga taxtirtay dadkaasoo kale ma tihid
hadda kadib adiga waxaa tahay dhiiggayga iyo deecaankayga adiga waxaad ii taagantaha booska aabbaheeyoo kale iyo weliba awoogayga waad i fahantaa u malaynaa waxaan ku leeyahay mar walba ilaaha ku dhaafo ha samaynaysa anigaa loo baahan yahay inaan adiga gacanta kaa shumiyo ammaano alla walaashay doono maxaa dhacayne marwacdiima xaaladayda way xumaatay aad iyo aadaad u mahadsan tahay gabadhayda mahadsanid doono orod masqusha u diyaari marooda waa loo soo qubeynayaa haddii loo qabay xoogaa xanuunka wuu ka degayaa mas inaad taha waan la socdaayo qof wanaagsan ha isaga kay dhigin wax walboo taha waan ogaa ima khiyaani kartid shaydaan yahay familkayga ayaad baabi'isay ujeedkaagana waan aqaananayaa waan kula socdaa inaadna dabarjarta maad u timid ugu horrayn soo caafimaad marwo taas ayaa muhiim noo ah maxaa dhacayna nayaasi maxaa dhacay wax ii sheeg mudan cabbaas ma aqaan sidaan kugu sheego warhedhe si toosa wax iigu sheeg maxaad dib samaynaysaan ma idilaysaan ii sheeg haddaa idilaysaan haddaba ii sheega dhaqsadii dadka badan jooji niyaasi maxaa qaldan wax ii sheeg mudan cabbaas abtoogan geedkana keenna ma fahantine waxana waa maxay waxaad ogaataa qof walba maalintiisa inuu adduunkan ka tegaayo cid dunidan ku waaraysana ma jirto waa la wada dhimanayaa qalad walbood gashan ilaahay hortiisaad ciqaab ku maraysaa dadkaas masaakiinta waad dhibaataysay laakiin ilaahay ayaa kaa jaasaynaya ilaahay waa u arkaa qaladka aad gelayso madaxiisa dariishad ka fur
Abuday benizlim zülfü dolaşık dividim kalemim yazar. Böyle bir yavrunun derdi var bende, oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim, yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklın kandıramadım, diledim kalemim yazar. Öyle bir yavrunun derdi var bende, oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum,